boqortooyada dalka Ingiriiska maamusha dalka sharaf iyo karaama ayay ka leedahay waana taariikh soo jireena oo aan la dafiri karin sadarkeesa halkan waxa lagu soo dhaweynayaa boqorka dhaxal sugaa ah ee William iyo wiilkiisa Kate iyo waliba marwadiisa halkani waa qasriga boqortooyada qayb ka mid ah baabuurtan ayaa lagu keenay goobta ay taalo diyaaradda nooca loo yaqaan helicopterka waxaana la rabaa dhaxal sugu inuu halkan ka dhoofo isagii si khaas ah u qaadanaya diyaaradda nooca loo yaqaan helicopter oo ay leedahay boqortooyada dalka Ingiriisku marka sidan oo kale boqorka dhaxal sugaa ahi uu dhoofayo waa in dhexda loo xidhaa amnigiisa si gaarana loo ilaaliyaa sadarkiisan halkan ciidamo aad u tiro badan ayaa taagan goobtan uu ka dhoofayo maalin ka hor ayaa la sii xidhay oo si gaar ah ayaa loo sii diyaariyey laakiin marka ay ka tegayaan qasriga boqortooyada dalka Ingiriiska si gaar ah ayaa loo karaameeyaa loona sii sharfaa ilaa inta ay raacayaan diyaaradda helicopterka ee loogu talagalay inay geyso goobaha ay marka ay rabaan inay tagaan ama ay ku safraan amiirka dhaxal sugaa ee William waxa uu rabaa inuu si tababarto xilka boqortooyada maadaama imka uu haya aabihii dhawaana ay dhimatay islaantii ayayda ahayd ee boqortooyada inta badan ka ahayd qasrigan ama dalkan maadaama uu dhalay wiilkiisa ayaa isaguna noqday dhaxal sugaha labaad waxaana macquula qoyskan inuu ku wareegto dhaxal sugaa boqortooyada haddii aabahood dhinto amiir Harry iyo marwadiisa ayaa weli iyaguna ka adaba joog boqortooyada maadaama imkaan ay ahayn labadooduba dhaxal sugayaal dabadda ayay iska wareegi karaan boqortooyada shuruudaheedu aad ayay u adag yihiin marka aad gelaysid maadaama ay tahay boqortooyo fac weyna dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhinaca dhaqanka waxayna iska ilaaliyaan waxyaabo fara badan oo dhaqankooda lug xun ku yeelan kara waana sababta guriga looga eriyey amiirkii dhaxal sugaa ahaa ee Harry iyo marwadiisii Meghan ee agtaradda ahayd dalka Mareykanka ay maanta degan yihiin si walba ha noqotee halkani waa qasriga boqortooyada diyaaraddan helicopterka ayay qaadanayaan maadaama ay dhoofayaan amnigooda waxaa la sii sugayaa 2 casho ka hor ciidamada ayaa goobtan oo dhan isku wareejinaya baabuur khaas ayaa lagu soo qaadayaa ilaa inta uu ka dhoofay halkanna ciidanku halkan ayay ilaalinayaan oo ay joogayaan